waxaa guud ahaan bala soo gabagabeeyay horyaalkii 41aad ee ciyaaraha fudud oo si weyn u soo qaban qaabiyeen maamulka xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud. waxaa tartankani gabagabadiisa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan kuwaas oo isugu jira bahda isboortiga qaybihiisa kala duwan, gudoomiyaasha kooxaha hoostaga xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud, xubno ka socda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, qaar ka mid ah xubnaha gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. hadda waa kuwan qaar ka mid ah marti sharaftii qaybta weyn ka ahaa soo xiridda horyaalkii 41aad ee ciyaaraha fudud iyo waxa ay ka yiraahdeen horyaalka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya. waxaan la tartanka atleetikada waxa aan baleynaa 6 kooxood ee ka soo qayb gashay horyaalka sanadan waxaan rajeynayaa kooxahan inta ka soo baad doonaan oo horumar wanaagsan aqsamay doono. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxay farxad noo tahay inaan tartankan galabta farxad bay noo tahay. waa ciyaar runtii oo isdhexgal bulsho ah, waa ciyaar maaragtay loo baahnaa maaragtay dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha isugu jira in loo qabto intii ka soo shaqaysay oo gudoomiyaashooda ay ugu horeeyaan isboortigaana ayaguna way mahadsan yihiin. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xiritaanka tartanka ciyaaraha orodada Soomaaliyeed. waxaan leeyahay oo maanta oo ah bisha 30 bisha 12aad waxay ii tahay farxad weyn anigoo ku hadlayo magacayga. waxaan leeyahay hambalyo gudoomiye Khadiija iyo xiriirka atleetikada waxaan leeyahay guuleysta. aad iyo aad aan ugu hambaleynayaa tartanka la soo xiray sharafta badan leh. waxaan leeyahay hambalyo sidaan si ka wanaagsan ciyaartooyda inta kuleeyo wax lagu farxo ay Khadiija soo bisay. dhinaca kale gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud Dr. Khadiija Aadan Daahir ayaa iyana faahfaahin dheeraad ah ka bixisay horyaalkii 41aad ee ciyaaraha fudud ee maanta la soo gabagabeeyay. haddaan warbixin kooban idinka siiyo horyaalka wuxuu noo furmay 22kii maanta oo 30 waa xiraynaa. waxaana leenahay guul dhammaantiin kii guuleystay iyo kaan guuleysanin waa wada guuleysteen gabdho iyo wiilal ayuu ahaa. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay muddo iyadoona gabdho horyaalka aysan ordin ama ciyaaraha fudud ay ordin oo gabdhihii kaalimo soo galay. waxaan leeyahay guuleysta dhammaantiin naadiyada waa u mahad celinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu dambeyntiina waxaa horyaalka soo xiray Ibrahim Rombe oo ka mid ah xubnaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa gabi ahaanba soo xiray horyaalkii 41aad ee ciyaaraha fudud asagoo kaga mahad celiyay dadaalkii waqtiga dheer ay muujiyeen maamulka xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud. waxaa sharaf weyn ah mar labaad in galabta aan ka qayb galno tartankii 41aad ee horyaalka ciyaaraha fudud oo runtii si fiican loo soo qaban qaabiyay. toddobaadkan wuxuu ahaa toddobaadkii isboortiga, marka waxaan leeyahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kooxdii soo qaban qaabisay ama xiriirkii soo qaban qaabiye oo ah xiriirka ciyaaraha fudud. waxaan leeyahay hambalyo guul ayaad soo hoyseen isboortiga Soomaaliyeed. mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo. waxaana ugu dambeyntii goobtaasi abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay bilado iyo koobkii loogu talagalay horyaalkii 41aad ee ciyaaraha fudud la siiyay ciyaartooydii ka kala socday kooxaha kala duwan ee xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud iyadoo markaa koox walba lagu abaalmariyay kaalinta ugu muhiimsan oo ay markaa ka galeen muddadii ay socotay tartankani.